السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكان قد داونيسا من ايجي سوا حكيم يرو اوفيشال فضل جنال كدادك عسوبتا سبسكرايب لايك شير داسي غارسي سبسكرايب marka aad dhahdo gambalaalka furasha aad u noqoto muuqaal alla muuqaalka u horeey ee aan soo galin qofka u horeeya daawado waa barnaamijkeena rifooga wali laakiin xubay waana baab dhex jirto qaybtaan laakiin marwal walaal aboowe waxaan leenahay share noo dhaha si asxaab cusub noogu soo biirto anaga baqaylina walaalayaalo lacag ma ah share aad dhahdo asxaabtaadu sii gaarsiiso ma aha yani wax qarashkaaga baxay wax yar waa inta fiirsanaysa wax ka yar waa subscribe ka ku dhufanaysa lacag ma waa free marba waxaan ku leeyahay subscribe like share halbu soo sii waa barnaamijkeena rifooga yaa ku dhageena maanta waa hees cusub ay soo saareen ama isla wadaan Nadiira Neyruus iyo Axmed Dawlo waa heesta kuleeto xumaata ma aha kuleeto waxyaabo waxay ka sheekeynaysaa ama looga hadlayaa labada wadan ee kala maqan laba wadan ma ahan gobol iyo wadan kala maqan Soomaaliya iyo Somaliland ayay ka hadlaysaa heesta marka aad fiirisid macna gooni ay xambaarsan tahay bal laakiin ereyer ee waxa ku jiro heesta waxa la soo dhigay janaalka Cabdi Askari Tube bal ereyer uu ka hadlay Cabdi Askari Tube ayadana idin soo qaadan doona uu leeyahay maroogdiga shilinta saaran ma arkay kan kale kan saaran buu arkaa kuleeta macna waa dareemi kartaa marooy shilinta saaran yani Soomaali waxay ka danqadeen nin madow ah ee lagu dilay Mareykanka laakiin dhexdoodii kama isa danqanin ma isana muujin waxa ay yihiin dad walaala shalay isku imaaday shalay hadii 26 June iyo calanka qoy soo qaaday iyo koonfur u keentay si wanaag iyo galgacayl ku jirto maanta maxay ku diidaysaa inay walaalood shalay iyo wanaajinayso oo maanta ay ku wanaag diyaar u ah inay raacdo because shalay ayada balama dhihin gobol kala tahay ama wax kala tahay waa la garab qabtay dhiilada iyo waday bal waxay ay intusiyo ereyer heesta qaar bilaabanay Soomaalidu saawe wixii soo maray dhibaato silixii wax ka baratay maanta markay saxday qiimihii wata noloshii samaatay dadku eebe wuxuu ka dhigay shucuub iyo qabaa'ilo si ay isugu gartaan ee isu kala saar lama dhig waa iska caadi umaduhu fikrado iyo mabaadi' inay mideeyaan iyagoo kala duwan Soomaalidu waa hal shacab oo shucuubaha kamid ah hase yeeshee dalada korinta iska iloobaan ayay waxay ku mashquulsan yihiin waxa hoose oo dhaxdooda oo aan dadka kula tasawada jeedin ereyada marka aad fiirisid yani waxa lagu leeyahay Soomaali waa dad dhiig badan laakiin shisha nin madow la dilay ay ka banaan baxayeen ka doodayeen sidoo mar labaad ku celinay maroodiga shilinta saaran ma arkay kan kale tan saaran buu arkaa yani dhibka ayda haysta Soomaali dhexdeeda isma aragtee waxay ka hadlaysaa nin madow ah ee meel kale lagu dilayo tan ayda haysta ma aragto waa labo wadan ee walaal ah saamud ogna Soomaaliya iyo Somaliland heestan wax kale kuma socoto labada dhinac ay ku socotaa maadaama uu leeyahay ama biixi ha noqdo ama farmaajo ha noqdo ereyada kuleeto saa dareemaysan ninkii raba baxa noqday wixii waa wada Soomaali ma aha walaalka ani hadaa cuni waay hilibku waa careyna inaad ahdo ma aha bal ereyada iyo qaabka ay u hadlayaan marka aad fiirisid miyaad ahaan qof Soomaali ah miyaad ahaan wadani dhiig la sheegay waa baleedahay bal arag shilinta aad dushaada saaran ha arkin mid kale wax maroodi kale mid saaran dushaada horta nadiifi kadib ka hadal mid kale ee adduunka la saawada ogna bal waxyar mid kale aad in sii daayo dhanki ayo heestaniya waa bogaadin bishaarani sidnaaye duciya waa bareeda sooban الله سندكي بلابما كيه سبنكي بدار الله سندكي بلابما كيه سبنكي بدار سومالي دا وبسيادة سومالي دا وبسيادة الله سندكي بلابما كيه سبنكي بدار الله سندكي بلابما كيه سبنكي بدار سومالي دا وبسيادة سومالي دا وبسيادة الله
sano beriyo xidigti xamar ee hargeysa ka soo jeesatay Nadiira Neerus kulleed eegayeedu waad maqlaysaan bal saan wada ognaa waxa ay leedahay wax kale ma ah kulleed maadaama aan nahay dad walaal ah anagu waa inaan isgarabsanaa oo Soomaali isku dhaqan isku diin isku afna marub ereyadaas waa la dhahaa misana wax shaqeeya ama ficil gala ma noqdaan waxa la dhahaa Soomaali waa isku hada af waa isku diin waa isku af waa isku hadal waa isku diin waa isku muuqaal laakiin ayada dhexdeeda ayaa iscunayso waraaba camal ninka walaalka maanta hadduu wax yar faa'iidayo ama wax yar uu helayo ma la siinayo jaaniskiisa waxa la leeyahay ninkan wuu faa'iiday anakana sidee baan ku faa'iidnaa oo ninkan kale ku noqonaa ninkan muxuu sameeyay intuu maray wuxuu maraa la raadinaa ninkan walaalka maanta horumar markuu sameeyo ku farax waa walaalka horumar gaaray ma aha inaa cadow ku noqotid waxa uu dhisay aad hoos ka soo burburisid ka daba shaqaysid ma ah saan wada ognahay Soomaali saas u badanta waxba iskuma quurto badankeeda boqolkiiba hal mooyaane 99 nin horumarkii nin kale dhibkiis waayay ku leeyihiin bal ninka walaalka hadduu horumar dhibka adig ku qabsanaya ama ka hor imaan kara muxuu yahay kulleed aan waxa aaminsanahay dabcan ma jiro laakiin dhibka walba ee jira si wada jira markaad uga hortagtaan ayaad waxtar yeelanaysaan muuqaalna noqon kartaan laakiin haddii tafaraaruq iyo kala qaybin lagu geliyo ma noqon kartid weligaa mid mana laga yaabo inaad dib iskugu soo noqotaan marka waxaa dhihi lahaa Soomaalida tafaraaruqa iska ilaaliya bal waxyar aad dib inkugu celiyo maadaama maqashay Nadiira Neerus Axmed Dowlan muxuu leeyahay Soomaalidu saawe wixii soo maray dhibaato silic wax ka baratay maanto markay saxday imihii wataan noloshii samaatay Soomaalidu saawe wixii soo maray dhibaato silic wax ka baratay maanto markay saxday imihii wataan noloshii samaatay daniyo talbasama falkiisa salaaniyo waa bogaadin bishaaraanidin sidnaaye duciya waa barida suuban daniyo talbasama falkiisa salaaniyo waa bogaadin kulleed labadooda waxa u malaysaa isku ra'yi inay yihiin maadaama lagu kala matalayo in Soomaaliya iyo Somaliland ka soo kala jeedaan maadaama xidigtii xamar iyo u wareegsatay dhanka iyo Somaliland ninkan uu matalayo inuu ka socdo dhanka Soomaaliya heesta saawada arkaysan horta maasha Allah cod muusiga codka wax dhan maasha Allah way gidinayaan laakiin Soomaalida waxa loo sheegay ma yihiin kuwa wax maqla wax fahma wax dareema waxa ku soo socda arka mise waa dad camoola waraabaha ku soo socda iska daafici karin nin siyaasiya maalin walba inuu erey ku keeno uu ninka in ku bahdilayo ama in ku kala dilayo ma aha inaad qaadatid war aniga adi maxaa isku nahay walaalana maxaa diiday inaad garab noqono hal meel ka soo jeesano si wada jira wanaag iyo galgacayl iyo walaaltinimo ku dheehanta aan wax isku la daadihino wax maleena dabcan wax diidan ma jiraan siyaasiga ka dhex shaqeynaya waxaan leeyahay dadka siyaasadda ee raba inay kala dilaan Soomaalida ilaahina ka baqa ma ogi waxa aad ku heleysaan maanta adduun waa berina waa aakhiro waa su'aal lagu weydiin doono nin walba madax ah noqdana ama xildhibaan noqo ama askariga u yar shaqada u hooseysay dawladda laga qabto beri markii qabriga lagu geeyo waa waxyaabaha ugu horeeya la weydiin doono shaqada ay haysay sidee u maamushay yaas ka maamushay yaas ku xumeysay saawada ogna marka aakhiradiina fiiriya ayaan dhihi lahaa siyaasiyiinta ha fiirinina wax maal adduunkan karfan cad baa ku leedahay waana ka tegi doontaa biidnillaahi alkariim saan wada ognaa taasna waa wax waajib ah diid ama doon waa wax qasab ah ee la maray dad adiga kaa sharaf badnaa kaa ciise iyo karaamo badnaa ayaa maray ma aha adiga inaad leedahay adduunkan malihid waa lagu keen itixaam weeye si wanaag ah ku gudo waajibka lagu dhiibay ma ahane musuq maasuq ama dadkaad inaad ku kala disho ma aha halkan naga daawanaysaan waa
حكيم يا اوفيشال فضلا جانال كادات كل عسبتها سبسكرايب لايك شير داسي قاسي اصحابتها الدنيا الدافيه كل جوجتو ولكن حكيم ولدي له سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى